waxaan gaar ah dana u salaamayaa guddoonka gabadha kaliya ku jirta sanadkan ee u soo gudubtay inay waddanka taladiisa wax ka qabato Saacadiya Samatar mudanayaal iyo marwooyin waxaan dareensannahay dhammaanteen hamiga iyo rajada aan dalka ka qabno dhammaantiin iyo Soomaali meel ay joogto dal jacayl diin jacayl ayaana hoggaamisa taasna waxay keenaysaa mar walba rajo inayna geliso dadkeennuna inay firfircoon yihiin soo jeedaan dad waxtar la yihiin waxaa lagu arkayaa dadkeenna tegay dunida daafaheeda marka loo fiiriyo ama Maraykan ha noqoto ama ha noqoto Yurub ama Afrika siday ummadda ula falgaleen wax uga qabsadeen dawladahaas kaga mid noqdeen waxbarashada kaga mid noqdeen marka dadkeennu waa dad tayo leh waa dad madax bannaan waa dad xor ah waxaan kaliya u baahannahay oo annaka waddankeenna culayska badan ku haya dawlad la'aanta maamul la'aanta sharci la'aanta iyo aafooyinka ay keeneen dagaalada sokeeye haddii taas laga baxana waxaan isleeyahay waddankeennu inuu noqon doono waddan barwaaqo leh horumar leh horena u socon kara adduunyadana la jaan qaadi kara ilaa aasaaskii dawladda hadda jirta 20 sano la soo dhaafay waxaa jiray tiir mar walba aan ku taagnayn oo ahaa dawladnimadana uga dhowaanaynay oo ahaa qori isku dhiibka doorashada taasna waxay noqotay mid simbirirxa u dhow 5 sano la soo dhaafay oo faraci diye leh lagu mitiday haddana halkan soo gaarsiisay waxaan isleeyahay in la sheego ama la magacaabo inaysan doorashadii kaliya oo dawladnimada salkeeda ku taalay aysan mar kale naga fakan waxaan ballan qaadayaa oo marka horeba soo jeedinayaa in haddii codkiina aad isiisaan in hawsha u horaysa oo ka shaqayn doono inay noqoto doorasho qof iyo cod ah taas ayaana kabeesa doorashada laftigeeda ayaa kabeesa inay noqoto dib u heshiisiin inay noqoto dadka wax tabanahaya oo ayaku dareensan ama 4.5 inuu dhibay ama oday dhaqameed inuu dhibay in sacbado iyo socodkooda iyo doorashadooda looga gudbi karo dhaqandarradaas iyo dawlad la'aantaas walaalayaal mar walba oo dawladnimadu ay bilaabato oo xukunka dadka yimaada waxay isku dayaan inay kuwii hore waxay ku qaldameen ay suubiyaan oo ay isku dayaan inay xukunka xoog ku hayaan ama ay si gaara u leexsadaan haddii marka taas wax lagu dheefahayo ama wax lagu helahayo taariikhdeena Soomaalida ayaa soo xustay mar walbana keenaysa isbeddel qof walba kursiga isku dhajiya ama doorashada boobana cawaaqibteeda iyo dhibaatadeeda waxay horseedtay waddankii inuusan hore u marin dhaqaalihii inuu burburo marka in lagu waana qaato haddii aan tix gabaya ama tuduc gabaygii ku jiray gurmad ee gaariye ku soo daro wuxuu lahaa haddii gubi kuu kordhaa gabow mooyee ku tarin garaadya waayo arag in ileen wax ma dhaaftin geed marka haddii qofka muwaadinka Soomaaliga uusan akhrin taariikhda uusan ka fekerin meesha wixii la soo maray ee sanad walba lagu celceliyo wixii la soo dhaafay in xukunka la boobo la isku dayo gacan maroojis la isku dayo musuqmaasuq inay meeshii ku soo dhammaanayso marka waa midii ay lahaayeen ingiriiska ku lahaayeen doing the same thing accepting different results waa insanity waa waali haddii aad ficil samaysid oo aad filaysid wax kale inay aad ka heshid marka walaalayaal mudanayaal marwooyin siyaasadayda aan rabo inaan waddanka ku hoggaamiyo waxaa saldhig u ah amniga iyo horumarkuna waxa weeye 4 sano ka hor tartankii baarlamaanka aan hor istaagay waxaan ka sheegay inaanna amnigeenna gacanta ku hayn
inaanna dhaqaalaheenna gacanta ku hayn inaanna siyaasaddeenna gacanta ku hayn maantana waa dareemi kartaan annagoo doorasho u taagan intaannu howlka ku jirnay in qarax iyo laba ay ka dhaceen magaaladan amniga horumar laga gaaro iska daayay waxaan joognaa maantay sannadkii hore 5 sano ka hor inaan baarlamaanka magaalada dhexdeeda aan hadal jeedinta ka suubinnay maantana aan joogno airboortka haddii amniga aan dib loo eegin oo sidaan lagu sii wadana waxay noqon doontaa doorashada soo socota mid aadi doonta dalka dibaddiisa marka walaalayaal waxaan rabaa inaan barnaamijkayga siyaasadeed ku soo koobo dhowr qodob oon ahmiyad gaara siin doono taas oo ah midnimada iyo wadajirka dalkeenna Soomaaliyeed walaalayaal haddii midnimada aan ka hadalno ma ahan midnimada keliya ee juqraafi ahaan ma ahan midnimada keliya ee siyaasad ahaan laakiin in laga hadlo midnimada wadajirka qulubta dadka Soomaaliyeed inay isjeclaadaan inay isfahmaan inay hadaf gaarana leeyihiin markii dadku ay qulubtooda meel u wada jeedo ayaa midnimadii waddankuna ay jiraysaa laakiin dad sharciga keliya isku hayo xuduudi isku hayso oon meelna u wada socon midnimo kama imaanayso qodobka labaad oon rabo inaan barnaamijkayga ku daro waxa weeye dowlad dhiska iyo hannaanka dowladdii waxay noqotay Soomaaliya ama dhaqankii Soomaalidu waxay noqotay in dowladdu ay noqoto wax ay leeyihiin ama shisheeye ama qolo gaara ee aysan dowladdu noqon wax u adeega dadka shacabka dowladnimadu sanadkan oo casriga la joogo waa inay noqotaa wax utility ama loo baahan yahay adeeg loo baahan yahay oo lamida caafimaadka oo lamida biyaha oo lamida aqoonta oo lamida korontada haddii aan dowladnimada ka dhigno wax qolo gaara iska leedahay ama kambani gaara iska leedahay oo lagu shaqaysto ama qolo gaara iska leedahay waxay keenaysaa dib u dhac iyo murankan iska daba wareegan hadda dalka ka jira oo mar walba dowladdu ay noqoto qofka ku fadhiya in la yiraahdo kooxdaasa iska leh dalkaasa taageera marka dowladnimadu in loo fiiriyo dastuurka aan ku wada shaqayno qodobka saddexaad oo aan rabo inaan barnaamijka ku daro waxa weeye nabadda cadaaladda iyo dib u heshiisiinta annagoon isyeelyeelayn waad ogtihiin nabaddu meesha halkay marayso maantay nabadgelyo la'aan ayaan ugu koobtay dowladdii haddaan nahay ama dadkii dowladda ka agdhowaa inaan hal dhinac magaalada ka deganaano in maanta doorashada halkaan lagu qabto in ciidamo walaalaheenna afrikaana ay weli joogaan sanadkii hore markii ballanqaadyada la samaynayay waxaan hor joognay dad badan oo lahaa ciidamadan waan ka kaaftoomaynaa walaalaheenna 2 sano laakiin waxaa moodaa inaan loo dhaqaaqin ee hadda la soo badinahayo marka amni darradana waxaa keenaya cadaalad darrada dad baa weli wax tabanahaya dad baa dib u heshiisiin tabanahaya gobollaa weli dib u heshiisiin raba intaasoo dhan intay tabanahayaanna cadaalad la'aanta amni ma imaanahayo horumarna lama gaarahayo dib u heshiisiintu marka waa inay noqotaa mid tuula mid degmadegmaa mid beela iyo mid siyaasadeed mid dhaqaale intaba laakiin inta la isgacan maroojinayo walaalle amniga iyo cadaaladdu meelna ma marahayaan amniga iyo difaaca qaranka ayaa ah qodobka afraad oon ku daray barnaamijka siyaasadeed waxaan aaminsannahay in ciidamo la sameeyey in afrikaan nala joogaan in haddana shacabkii ay weli dayacan yihiin oo waddankii amni uusan ka jirin anigu waxaan soo jeedinayaa in shacabka Soomaaliyeed amnigooda gacanta loo geliyo oo aan la dhihin amnigu waxaa iska leh qolo gaara ama dowlad gaara iska leh laakiin shacabka in laga howlgeliyo macallimiinta culummada hooyooyinka ardada qolo walba in la yiraahdo amniga idinka ayaa ka mas'uula oo aysan wuxuu iska noqon ballanqaad beena laakiin wax dhaba oo laga shaqeeyo oo ayaka gacantooda lagu xajiyo hadda waxaad moodaa amnigii sanadkii hore markaan tartamaynay amisom ayaa jirtay sanadkan ciidamo kale ayaana loo sameeyey amitis marka haddii aan ka sugayno amnigeena in adduunyo kale ay sugto wakhti dheer ayaan sugaynaa marka walaalayaal inaan dib isugu noqonno degmooyinka ku laabanno
inteena awoodda inay amniga wax ka qabtaan inaan amniga dawladdana loo dayn ciidankana loo dayn laakiin shacabka lagu celiyo gacantiisa amniga adeega bulshada waxyaabaha dawladdu u dhisantahay oo ugu horeeya wax weeye dadku u adeegto oo sida waxbarashada caafimaadka amniga intaasoo dhanna waddanka lagama hayo hadda dawladda ayaaba culays ku ah shacabkii ayay ku noolaan lahaa marka si taas looga baxo in dib eegis lagu sameeyo adeegga bulshada oo la fiiriyo dhaqaalaha inta lagu bixinayo ciidanka inta lagu bixinayo waxbarashada waxaan ka shaqaynaynaa inaan raadinno dhallinyarada Soomaaliyeed ee firfircoon oo maskaxdoodu furan tahay in aan gaarsiino heer ay dhoofiyaan aqoonta taas oo ayagu halkan jooga ay ka shaqayn karaan meel kastoo adduunyada ka jirta laakiin haddii aan waxba la barin haddii aan caafimaadkooda la dhowrin intaasoo dhan lama gaari karo waxaa sidoo kale aan rabaa inaan ka hadlo barnaamijka la xiriira arrimaha dibadda oo ah arrin aad iyo aad annaka noo saamaysa kuna aadan meesha aan qalfoofka Afrika kaga naalno taas ayaa oo noqotay biyo mareenka ama jidka adduunyadu isoo gudubto waxaa kaloo annaka si gaara noo saameynaya dawladaha dariska waxaa si kaloo gaara noo saameynaya dawladaha kulligood eeganahaya inay meesha jilicsan adduunyada ay ayagu ka degaan adduunyadu hadda waxaad moodaa in ay ka baxday meesha hal quwad ka talin jirtay ee quwado yaryar ay meel walba ka talin doonaan hadda waxaad moodaa sharciyadii adduunka in lagu tumanayo oo ismuquunis uu jiro marka si aan waxaas uga badbaadno annagoo isdiyaarinayna tabarteennana og waa inaan ka shaqaynaa inaan dadka dariska dawladaha kale iyo caalamkaba kula noolaano siyaasad dhexdhexaada oon danteenna ka fiirsanayno qodobka ugu dambeeya oo arrintan la xiriira ee barnaamijkayga siyaasadeed waxa weeye horumarinta dhaqaalaha waxaan bari dhoweyd ka hadlaynay in khayraad waddanka ku jiro ilaa waagaan dhashay waxa la waddankeenu waa qani laakiin weli waan taaban la'nahay meeshina la ka jiray hadda waxaan ka hadlaynay bari dhoweyd in batrool la soo saaro laakiin waxaad ogaataan weli inaana galley beeran karin marka batroolka la soo saaro waad ogsoontihiin dhammaantiin dhibaatooyinka uu leeyahay adduunyada waddamada batroolka soo saara iyo waddamada batroolka soo saarin noloshooda waxaa fiican kuwan batroolka soo saaray waxaana keenaya waxyaabahaas waxaa ka mid ah corruptionka musuqmaasuqa iyo isku hallaynta in dhaqaalihii kale la curyaamiyo oo ay dawladdu ku koobnaato keliya lacag uga soo gelaysa kirada batroolka ama macdanta marka waddamada waxaa ku dhacaan oo kale oo curyaamiya kaabihii dhaqaalahoo kale waxaa ku dhaca waxa la yidhaha Dutch disease marka saad taas uga badbaadno aafooyinka ka imaan kara qaraxyada ama shilalka ka imaan kara batrooladan ama oo la xiriira arrimada bay'ada inaana batrool aadine aan balgalley aan isku dayno inaan beerano marka hore intaana batroolka aadin waxaan ku soo gabagabaynayaa doorashadu waa dib u heshiisiin waa horumar waa rajo marka waxaan rabaa iyadoo hadda baarlamaanku cusub yahay in walaalayaal iyadoo dagaal badan laga soo galay qof walba suu kursiga ku soo qaadan lahaa annakuna dalkuna weji fiican loogu furi lahaa waxaan rabaa inaan dib u heshiisiin ka dhiganno doorashada laftigeeda waxaan ku soo gabagabaynayaa tuduc yar oo ka mida tixdaas gaariye ee ahayd gurmad wuxuu leeyahay haddaad gorod diidan tahay ku koob dirirta gorod ha nicin gobolkuu ka yimid ha goyn xargaha ha goyn waxa la isku yahay waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum